kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada Somali Turkish moogtahay daawada inaad isticmaali kartid WhatsApp-kaaga iyo Messenger-kaaga adigoo offline isla markaana aanay asxaabtaada ama khayraadtaada ku ogaanayn inaad online tahay haddaba waa hab fudud isla markaana anfacaya dad fara badan waxaanu ku horeyn doonaa WhatsApp-ka ayaynu ku horeyn doonaa waxaanu tagaynaa markaanu WhatsApp tagno kadibna menu-ga ama menu barka xagga midigta ee saddexda dhibcood ayaynu tagi doonaa kadibna settings-ka ayaynu tagi doonaa kadibna account ayaynu tagi doonaa kadibna privacy kadibna halka aynu u soconaa waa halkan last scene feature-kaasi ayaynu wax ka bedeli doonaa last scene baynu ku dhufanaynaa saddex option baa yaala waa everyone qof walba ha arko WhatsApp-ka inaan online ahay macnaha xilliga aad ku jirto inta badan wuxuu soo qoraa last scene 2 hours ago ama siyaabahaas oo kale ama 8:15 buu qofkaasi online ahay ugu dambeysay ama hadda ayuu online yahay ama last scene 2 minutes ago 2 daqiiqo ka hor marka qof walba uu arki karaa marka ay everyone tahay inaad mar dhaweyd active ahayd ama aad hadda active tahay oo aad fadhidooda online tahay my contacts said raadidna waxa weeyaan asxaabtayda igu jirta contacts oo kaliya ee WhatsApp kale ayaa arki kara nobody hada raadidna waa option-ka aynu soconay cidna arki mayso inaad online tahay balse waxba muuqanaysa mid offline adigoo isticmaalaya isla markaana ka jawaabay fariimaha lagu soo diro haddaba halka aynu soconaa waa halkan nobody baad oranaysaa sida oo kale profile picture-kaaga ayaad ka dhigan kartaa inuu ku noqdo nobody oo aanay qofna arag sawirkaaga ku saaran WhatsApp-ka sida oo kale information-kaaga kale WhatsApp-ka ayaad qarin kartaa oo nobody ka dhigi kartaa si aanay cidna u arag haddaba isagoo sidaa offline aynu nahay ayaad isticmaali kartaa WhatsApp-kaaga oo aad fariimaha dadka u qori kartaa haddana waxaynu eegi doonaa Messenger-ka sida la isaga dhigo offline isla markaana asxaabtaada aad fariimo ugu diri kartid fariimaha kale ay kuu soo diraan aad ugu jawaabi kartid Messenger-ka marka aynu tagno kadib profile picture-kaaga ayaad ku dhufanaysaa ama chat-iska dhankeeda bidix waxaan sii tagaynaa active status hadda sida default-ga ama ay ku timaado waxa weeyaan show when you are active oo asxaabtaadu markaad active ka tahay ama aad fadhideeda online ka tahay way arkayaan inaad online tahay oo symbol blue-ga u muuqanaya symbol green-ka u muuqanaya status green-ka haddaba si aad offline iskaga dhigtid state waxaanu tagaynaa active status-ka aynu ku noqonaynaa kadibna option-kaas aynu off ka dhigaynaa wuxuu ku weydiinayaa turn off active status miyaad xidhaysaa active status-kaaga wuxuu yidhi you want to be able to see when your friends and contacts are active or were recently active ma ogaan doontid saaxiibadaada active-ka sida oo kale kuwa mar dhaweyd active ahaa ee daqiiqada ka hor ka baxay khadka dhankan markaad eegtid WhatsApp-ka ayaa ku wacan waayo WhatsApp-ku isagu adigoo offline ayaad asxaabtii la sheekaysanaysaa oo arkaysaa inay active yihiin laakiin Messenger-ka kaliya waad la sheekaysan kartaa balse ma arki kartid aanad ahayn haddii aanad adiguna active ahayn marka turn off baan leenahay hadda waxa weeyaan ma nihin online ma nihin oo offline baynu nahay haddana asxaabteena waan la sheekaysan karnaa waxbaan u qori karnaa waanaynu soo qori karnaa waad mahadsantihiin hadduu muuqaalku qanciyo fadlan la sii wadaag asxaabtaada si uu dad badan u gaadho